بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. kusoo dhawaada channelka anaga ooga baratay maadooyinka sayniska gaar ahaan xisaabaadka iyo fisikska iyo casharo la halmaala kombiyuutarada. Muuqaalkan ustaad waxaan aga hadli doonaa maadada fisikska cashar la xiriiro chapterka koowaad oscillatory motion gaar ahaan equations of simple harmonic motion and reference cycle. Okay, ciwaanka markaan fiirino ustaad wuxuu noo tilmaamayaa in ay jiraan la xiriiro simple harmonic motionka ayadoona aan ka dhiganayno reference ama root raac aan ka dhiganayno cycle-ka aan ka dhiganayno ama cycle taqaanid goobada. Okay, casharkan waxaan ku fiirin doonaa ustaad saddex walxood ayaan ku fiirinaynaa oo simple harmonic motionka uu sameeyo. Saddexdaas arrimood aan arki doonaa waxaa ka mid ah kow, displacement oo hore aan usoo qaadanay aan dhahnay waa barbax, shay inuu bar ka tago bar kale uu tago ayaa displacement loo yaqaana. Good, taas waa isla fahnay. Qodobka labaad aan rabno muuqaalkan inaan ku aragnaa wuxuu yahay velocity, kaynaan buu sameeyaa shayga markuu dhaqaaqo meel kale uu aadayo xawaaruu ku socdaa. Yes, waa sax, ayadana waa qodob labaad. Qodobka saddexaad aan muuqaalkan ugu arki doonaa wuxuu yahay acceleration, karaar. Shay waliba oo dhaqaaq sameeyo acceleration buu leeyahay, karaar buu leeyahay. Marka saddexdaas walxood ayaan ku arki doonaa muuqaalkan hadduu Ilaahay idmo. Waxaan ka bilaabaynaa ustaad displacement ayaan ku bilaabaynaa. Object simple harmonic motion ku jiro wuxuu leeyahay displacement buu leeyahay ama wuxuu sameeyaa displacement buu sameeyaa. Objectiga displacement uu sameeyaa. Dabcan displacement waxaan dhahnay bar inuu ka tago bar kale uu tago. Sida dabcan muuqaalka uu idin kaga muuqdo equation of simple harmonic motion and reference cycle. Waxaan reference aan ka dhiganayaa ama root raac aan ka dhigaynaa si aan u helno equationadan cycle-ka ayaan ka dhiganaynaa ama goobada ayaan isticmaalaynaa. Cartesian plane ka soo qaadanaynaa ustaad. Okay, waxaan soo qaadanaynaa cycle ayaan soo qaadanaynaa. Cycle-kaasoo laba dimension uu leeyahay, two dimension, horizontal dimension iyo vertical dimension uu leeyahay. Halkaas aan u naqaano y, intana x aan u naqaano. Okay ustaad, waxaan dhahnay haddii object position-kan uu joogo, objectiga aan b aan u qaadano, object bartaan uu joogo dhaqaaq uu sameeyo, objectiga bara cycle-ka dushiisa meelahaas ka mid ah uu tago, aan u qaadano b prime aan u qaadano. Objectiga waxaan dhahnay projection ayuu leeyahay. Projection horena waan usoo qeynay, waxaan dhahnay waa hooska shayga markuu dhaqaaq sameynayo uu leeyahay. Dabcan waxaan dhahnay projectionkiisana centerkuu ka kacayaa, dhaqaaq buu la sameynayaa, barti uu ku aadinayo uu la aadayaa, uu la tagayaa. Haddaan u qaadano center o, objectigana aan u qaadano projectionkiisa n, antana m prime bay noqonaysaa, waa meesha uu joogo. Okay, waxaa lahay initial position-ka markuu ku tago final position uu joogo objective waxaa lagu daraa centerka ayaa lagu daraa ama terminal ayuu sameynayaa. The across x axis ku wuxuu la sameynayaa terminal uu sameynayaa. Okay, objectigan dhaqaaqa sameynayo ustaad oo halkaan markuu ka soo tago oo halkaan uu imaado xawaaru uu ku socdaa ustaad. Xawaarahaas oo constant uu yahay oo meega loo yaqaan. Intaas qodobkaas waa ilfahantii u maleeyaa. Okay, objectiga markii ustaad halkaan uu joogo bartaan uu joogo wuxuu kaloo sameeyaa waxaan dhahnay dhaqaaq buu sameeyaa, baruhu kala bedisho Soomaan. Waxaan ka hadlayno waxaa waaye ustaad simple harmonic motion equationidiisaan ka hadlaynaa. Yaa simple harmonic motion sameeya? Dhaqaaqa simple harmonic motion-ka keebaa ku socdo? Is it the object or it is the projection? Projection-ka ayaa sameeya simple harmonic motion sameeya. Waxa simple harmonic motion ku soconayo waa projectionkiisa. Marka projectionkiisiga ayaa sameeya to from ama backward forward motion ayuu sameynayaa. Hadda objectigan markuu uu soo laabto halkaas uu ku soo laabto, projectionkan centerkuu ku soo laabanaya. Haddii objectiga intuu imaado, projectionka intuu imaanaya. Haddii objectiga bartaan uu imaado, projectionkiisa halkaas uu imaanaya. Haddii objectiga on top of the line uu noqdo, projectionka bartaas ayuu tagayaa. Means
projection ka hadhow ma sameynayo wuxuu ku dul sawirmaya objectiga ay ku dul sawirmaya qodobkaas waa isla fahnay umale okay ustaad waxaan kaloo tilmaanay objectiga cycle ku socdo marka projection kiisi waxaan isku qabanaynaa barta objectiga uu joogo isku daraynaa oo halkaas ah wuxuu sameeyay xagal theta loo yaqaan objectiga yes thetadan marka waxay la egtahay thetada sababtoo ah waxay sameynayaan alternate angles ay sameynayaan xaglaha talantaaliga ama x z qaabka z ka ay sameeyaan waxa la xagla talantaali ama alternate angles la way isla egyihiin halkan theta day la egtahay halkaas theta ay la egtahay okay barta uu joogo objectiga iyo centerka la isku xiray waxa loo qaataa a baa loo qaataa waa amplitude fogaanta ugu fog uu centerka uu ka fog yahay waa okay halkan waxa inooga soo baxay dhaqaaqa objectiga uu sameynayo to and from uu sameynayo halkan waxaan u qaadanaynaa initial position iyo final position projection uu joogo waxaan u qaadanaynaa y waxaan raadinaynaa waxa way marka dhaqdhaqaaqa y-dan ama qiimaha y lagu heli karo centerka ilaa barta ay joogto qaacidada lagu heli karo ustaad halkan waxa iga soo baxay right angle triangle qaabkan u ega iga soo baxay right angle triangle shape kan leba meeshan ka soo baxay exact aan ku soo sameyno oo theta-diisa inta theta ay la eg tahay length hypotenuse-kiisu uu la eg yahay halkaasna uu 90 degree uu ka yahay intana ay y ay la eg tahay okay marka ustaad angle aan haystaa waxaan kaloo haystaa hypotenuse iyo opposite yaan heli karaa waxaan heli karaa sin baan heli karaa sin waxa lagu helaa opposite over adjacent soh waa lagu helaa sin theta waxa lagu helaa opposite over hypotenuse okay sin theta waxay la eg tahay marka opposite ka meeqa haystaa opposite waxaan haystaa y yani angle kan opposite kiisu waa y hypotenuse kiisa jiifkiisuna waa a okay si aan u helo y labada dhinac ku dhufo dhinacaasna ku dhufo dhinacana a ku dhufo a way isla baxayaan halkan y kaligeeda waxay la eg tahay a sin omega t okay waxaan rabaa sin theta waxaan naqaanaa theta waxa lagu helaa ustaad theta waxa lagu helaa omega t meeshan waxaan ku bedelayaa y waxay la eg tahay waxaan leeyahay y waxay la eg tahay a sin omega t waa equation-ka koowaad salimada ustaad omega ayaan meeshan bedeli karaa sababtoo omega waxaa lagu helaa 2/f 2/f baa lagu helaa omega marka meeshan waxaan rabaa 2/f baa lagu helaa meeshan omega waan bedeli karaa y waxay la eg tahay a sin meesha omega waxaad ku bedeshaa 2/f t waa equation-ka labaad aan isticmaali doono equation-ka anaga saddexaad wuxuu noqon doonaa meesha f aan bedeli karaa sababtoo frequency waxaa lagu helaa 1/t baa lagu helaa 1/t meeshaas waxaan ku bedeli karaa 1/t a sin 2 oo t meeshan ku bedel t oo ku dhacsan t small kani waa equation-ka saddexaad 2 meesha f waxaan ku bedelay 1/t t small marka saddexdaas equation ayaan guud ahaan isticmaalaynaa waxayna ku imaadaan cycle-ka anagoo exact aan ku sameynayna ama reference aan ka dhiganayna cycle-ka ayay ku imaadaan equation-ada okay marka fogaanta displacement across y axis ustaad qaacidooyinkana lagu helaa micnaheedu waxay tahay ustaad kullama haddii la isiiyo angular frequency haddii la isiiyo waxaan isticmaalayaa qaacidadan angular frequency haddii lagu siiyo qaacidadan isticmaalay or else haddii lagu siiyo angular speed ama angular velocity haddii lagu siiyo qaacidadaas isticmaalay haddii ay siiyaan period haddii la siiyo qaacidadaas isticmaalay marka kullama waxay ku xiran tahay su'aasha qaabkii lagu weydiiyay ayay ku xiran tahay qaabkeen u isticmaalaa marka waxa base ah laakiin waa qaacidada base-ka ah waa midaas okay aan ku soo laabana cycle waxaan dhahnay motion-ka markuu sameynayo objectiga simple harmonic motion-ka sameynayo labada dhinac buu u sameeyaa vertical direction uu u sameeyaa horizontal direction uu u sameeyaa ama vertical motion uu u sameeyaa horizontal motion uu u sameeyaa vertical motion ustaad markaan leenahay waxay tahay markuu sameynayo to and from across the y axis markuu sameynayo loo yaqaana
vertical movement and vertical motion ayuu sameynaya oo lagu helayo y qiimo ama astaan ahaan loo qaadanayo y ama waxaan dhahnay haddii uu saan u sameynayo sidaan uu u sameyn karaa dhaqdhaqaaqa across x axis uu sameyn karaa marka across x axis markuu ku sameynayo waxaa la horizontal component ayaa la lahaa oo dabcan waa muuqaaladii ka horeeyna waa aga soo hadalnay waxaan dhahnay haddii projectionka object hadduu dhaqaaq noocaas uu sameeyo halkaas uu joogo projectionkan intuu kasoo tagayo halkaas uu taagan yahay haddii objectiga intaas tago projectionkiisa intuu imaanayo haddii objectiga intaas tago projectionkiisa halkaas uu imaanayo haddii objectiga intuu imaado projectionkiisa intuu imaanayo haddii objectiga intuu imaado projectionkiisa halkaas uu jooga haddii objectiga intuu imaado projectionka meeshuu jooga marka sidii y axis uu sameynayo x axis uu sameynayo marka dabcan isku xirna meesha uu joogay projectionka bartii uu joogo isku xirina silmada waxaa halkan inooga soo baxay right angle triangle oo halkan ay tahay x centerka iyo meesha projectionka uu joogo x aan u qaadanayna okay waxaan haystaa adjacent iyo hypotenuse yaa lagu helaa waxaa lagu helaa ustaad cos baasaa lagu helaa cos waxaa lagu helaa cos theta waxaa lagu helaa adjacent olaba hypotenuse sidaana lagu helaa cos theta okay cos theta waxay la eg tahay adjacentiisa meeqa haystaa x haystaa x hypotenuse meeqa haystaa a baan haystaa si aan u helo x a halkaas ku dhufo halkaana a ku dhufo a iyo a way isla baxayaan x ustaad waxay la eg tahay a cos theta ayay la eg tahay okay halkan waxaan heli karaa theta waxaa lagu helaa omega t oo hore usoo qaadanay marka meeshan waan bedeli karaa a cos omega t ayaan ku bedelaya booska theta waa equationka koowaad equationka labaad ustaad waxaan sameyn karaa meesha omega waxaan ku bedelaya 2 by f aan ku bedeli karaa t sababtoo ah omega waxaa lagu helaa 2 by f aa lagu helaa waan ku bedeli karaa waa equationka saddexaad equationka afaraad oo aan isticmaali karo waxay tahay waxaan leeyahay meesha 2 by f frequency waxaa lagu helaa 1 over t marka meeshaan ku bedelo 1 over t saddexdaas equation ayaan guud ahaan isticmaalaynaa qaabkaasayna ku imaataa qaabkaasay ku imaataa marka waa inaan fahamnaa si reference cycle markaan ka dhiganayno qaabkan aan u raadinayno fogaamaha ay sameynayaan projectionka objectiga ku socdo simple harmonic motion halkaas waxaan uga gudbaynaa derivative-ka ama derivationka qaacidooyinka ama equationada displacement-ga uu sameeyo waxaan u gudbaynaa velocity ama kaynaanka objectiga uu ku socdo insha Allah okay ustaad waxaan ka hadlaynaa waa velocity kaynaanka uu sameynayo object ku socdo simple harmonic motion still waxaan reference ka dhiganaynaa cycle-ka sababtoo ah cycle-ka waxaan reference ka dhiganaynaa waxay tahay simple harmonic motion object ku socdo iyo object uniform circular motion ku socda ayaa isshibah therefore objectigan projection uu sameeyo projectionkiisu waa waxa simple harmonic motion sameynaya that's why cycle-ka aan u isticmaalay okay object bartaan uu taagan yahay haddii waxaa lahayd dhaqaaq uu sameeyo object bar b uu joogo haddii dhaqaaq uu sameeyo bartaas uu tago b prime meeshaas uu joogo objectigan wuxuu ku socdaa lahay xawaaro omegadaas oo constant ah bartaas uu joogo iyo centerkana waxay la sameynayaan angle bay la sameynayaan anglekaas oo loo yaqaan theta intaas waa isla fahanay umaleeyo okay ustaad waxaan rabaa inaan ku fahansiiyo halkan objectiga markuu joogo in uu xawaaraha isku bedelayo xawaarihiisa uu ku socday inuu isku bedelayo xawaaro loo yaqaan tangential velocity aan ku celiyo meeshan ustaad objectiga markuu cycle uu ku dul soconayo xawaarihiisu waa constant yes xawaaro constant uu ku soconayo laakiin waxaa jiro markuu qalooca la sameynayo center of the cycle uu ku wareeganayo just like gaari ku wareeganayo kilometer 4 wareega markuu sameynayo gaarigaas xawaarihiisu xadidan yahay yani ma taagno xawaaro ku socda yes xawaaraha uu ku socdo laakiin waxaa jiro xawaarihiisa inuu isbedelayo mar waliba
goolada uu la galayo kilomitir afarka uu la wareeganayo ama round about uu la wareeganayo wuxuu ku xadidayaa inuusan cycle-ka uga bixin yani hadduu xawaarihiis toos uu ku socdo isla markii wuxuu ka baxaya wadada soomaan yes wadadiis ku aadin uu ku baxaya therefore si uusan wadada ugu bixin waxaa u qasban yahay inuu ku xadido cycle-ka dushiisa ama round about inuu ku xadido yes qodobkaas waa ilfahantii umaleeya marka round about si ugu xadido wuxuu leeyahay xawaare loo yaqaano tangential velocity yani sabab tangential velocity loo dhahayo waxay tahay tangent of the cycle uu ku socda yani qarka cycle-ka dushiisa uu ku socda waa qodob okay tangential velocity na ustaad waxaa lagu helaa tangential velocity waxaa lagu helaa omega r halka r ay tahay distance aan meeshan u qaadan doono a sababtan a uu qaadanayna waxay tahay fogaanta center of the cycle ilaa center of the cycle to the edge of the cycle ayaa ah amplitude waa fogaanta ugu fog uu sheygan uu ka gaari kara cycle-ka okay tangential velocity gan ustaad laba component uu sameynaya laba u kala jabaya objective mar hore waxaan sheegnay barta uu joogo cycle-ka dushiisa projectionkiisana bar uu ku aadaya yani isku aadayaan barta cycle-ka uu ka joogo kasoo horjeedkiisa projectionkiisa taagan therefore meeshan projective uu taagan iyo waxaan isku daraynaa meesha uu objective uu taagan yahay halkaas ayaan aan ka sameynaynaa objectigan tangential velocity-gan in uu kala jabayo laba component oo kala ah horizontal component iyo vertical component labadan component uu kala jabayo waa qodobkaas ina ila fahantid waa okay xawaarahan oo tangential velocity labada component u kala jawaab vector markaan aan ka soo hadlaynay aan soo tilmaanay wuxuu sameynayaa xawaarahaas aan u baahanahay waxay tahay waa kan vy okay halkaan wuxuu ka sameynaa marka halkaana waxaan ka soo qaadanaynaa shaxda uu sameynayo shax wuxuu sameynaa right angle triangle halkaan right angle triangle uu ku yahay okay maadaama xagasha uu terminalka la sameynayo theta ay tahay tanna waxaan u qaadanaynaa waxay tahay waa theta sababtoo ah alternate angle ayuu sameynaya waa qodob kale okay ustaad waxaan kaloo u baahanahay xagashaas inaan helno xagashaas ma heli karnaa yes xagashaas waa heli karnaa sababtoo ah waxaan ognahay line tangentiga haddii uu ka sameysmo line isla lineka centerka uu ku laabanayo right angle triangle inuu ka sameysmayo meesha tangent of the cycle inuu right angle triangle uu ka sameysmayo marka halkan haddaan theta aan haysto total angle-kana uu 90 uu yahay qaybtaas harta ma heli karaa yes waxaan ku helayaa 90 minus theta ayaan ku helayaa qodob waay kaas waa inaa ila fahantaa marka hadda aan soo bixino marka waxaan soo bixinaynaa right angle triangle oo sameynayo noocan tangent ah component mid oo vertical ah iyo mid horizontal ah iyo across the cycle-ka dushiisana uu theta-daasna ay la eg tahay 90 minus theta ustaad meeshaas qodobkaas inay ila fahanteen u maleeyaa waa kana waxaan dhahnay tangential velocity-ga laba u kala jabaa laba component uu sameeyaa vertical component oo y axis-ka ah iyo horizontal component oo x axis ah yani gaariga inuu socdona waa la rabaa inuu soo wareegtana waa la rabaa xawaarihiisa laba u kala jaba marka xawaaro uu hore ugu dhaqaaqayo iyo xawaaro ku qasbayo inuu la wareegto goolada la galo sooma saas inaa u kala fahanti waayo marka wuxuu sameynayaa vertical component oo xawaarihii kor ugu soconaya iyo horizontal component ee xawaarihii uu kusoo qaloocanaya cycle-ka dushiisa ugu soconaya therefore meeshaas ayaa waxaa nooga soo baxay right angle triangle oo angle-kiisuna uu yahay 90 laga jaray theta qaybta aan u qaadanayno vy qaybtaan aan u qaadanayno vt oo tangential velocity-ga okay intaas waa ila fahanteen umale okay having opposite iyo hypotenuse yaan heli karnaa ustaad waxaan heli karnaa sin theta waan heli karnaa sin theta waxaa lagu helaa opposite oo laba hypotenuse lagu helaa waa qodob okay theta meeqay la eg tahay marka ustaad theta waxay la eg tahay 90 minus theta ay la eg tahay waa kana waa angle-kaas opposite-kana meeqa waa vy waa ustaad hypotenuse-kana meeqa waa vt okay vy si aan u helo vt halkaas ku dhufo halkaan waxaan ku dhufanayaa vt way isla baxayaan halkaan waxaa haystaa vy wuxuu la egyahay vt oo ku dhacsan sin 90 laga jaray theta waa qodob
okay vt maxaa lagu helaa ustaad vt waxaa lagu helaa omega a oo ku dhacsan sin 9 laga jaray theta markaan ka hadlaynay cofunctions markaan ka hadlaynay waxaan soo tilmaanay mathematical trigonometric equations markaan ka hadlaynay cofunctions waxaa la lahay sin 9 laga jaray theta waxay la eg tahay sin 90 minus theta waxay la eg tahay cos theta waa qodobkaasna inaad ogaatid waay meesha marka sin 90 minus theta waxaan ku bedelayaa cos theta aan ku bedelayaa cos theta okay theta waxa lagu helaa waan ogahay theta waxa lagu helaa omega t baa lagu helaa meeshaan theta ku bedel marka omega a oo ku dhacsan cos theta lagu bedelay omega t this is the equation kan isticmaaleen across y axis velocity y axis ku sameynaa markaan raadinayno equation kana isticmaalayna ustaad okay waxaan raadinaynaa xawaaraha markii objective uu ku socdo markii objective uu sameynayo vertical component uu sameynayo halkan ba wuxuu ka noqonayaa vx kan la isticmaalaya dhimala halkaas haduu component uu vy uu ku noqonayo across x axis wuxuu ku noqonayaa vx buu ku noqon okay vx markaan raadinayno kan la isticmaalayna ustaad okay haddaa haysatid adjacent iyo hypotenuse maxaa heli kartaa waxaa heli kartaa cos theta heli kartaa cos theta waxaa lagu helaa adjacent oo laba hypotenuse lagu helaa ustaad hypotenuse okay cos theta na meeqay leegtahay theta waxay leegtahay 90 minus theta ay leeg waa kana angle-ka waa angle-ka 9 laga jaray theta uu leeyahay adjacent na meequu leeyahay adjacent na wuxuu leeyahay vx buu leeyahay olaba vt oo ah hypotenuse buu leeyahay ina vx aan raadinayo halkan vt dheh halkan waxa ku dhuftaa vt ku dhuf vt isla baxayaan vx wuxuu leeyahay vt oo ku dhacsan cos 9 laga jaray theta okay cofunctions markaan ka hadlaynay cos 9 laga jaray theta maxaa lagu helaa ustaad waxaa lagu helaa vt horta waxaa lagu helaa omega a vt waa tangential velocity aan usoo gaabsanay waxaa lagu helaa omega lagu dhuftay a cos 9 laga jaray theta waxay leegtahay sin theta way leegtahay okay theta ayaan heli karnaa meeshan theta waxaa lagu helaa cos omega sin theta waxaa lagu helaa omega t equation-ka labaad vx markaan raadinayno ustaad aan isticmaalayna kan buu noqonayaa marka halkaas waxaan u gudubnay velocity-ga uu sameynayo simple harmonic motion xaraarka waxaan rabaa kaynaanka uu sameynayo okay waxaan rabnaa ustaad mid kale inaan ogaano oo ah maximum velocity wax la kaynaanka ugu sareeyo maximum velocity ustaad waxaa lagu helaa amplitude lagu dhuftay angular frequency reason why sababtoo ah ustaad at points halkan markuu joogo ama halkaas uu joogo 0 wuu leeyahay final velocities sababtaan u leenahay haddana waxaan leenahay wax xagal ah uu sameysmo sinkaas iyo wax uu ka hadlayo waa angle Soomaa wax angle uu ka sameynayo ma lahan meelahan markuu joogo waan cadeynaynaa ustaad markii objectiga uu soo dhaqaaqo halkaas uu joogo projectionkiisana halkaas uu la imaanayo objectiga dhaqaaq uu sameeyo halkaas joogo projectionka inta la imaanayo objectiga haddii meeshaas uu tago where is the projectionkan uu ku dul sawirmaayo qodobkaas waa inay la fahantaa marka haddii objectiga meeshaas uu joogay centerka haddii lagu celiyo lagu xiro centerka haddii lagu xiro there is an angle xagal baa jirto meeshaas xagal buu sameynaya ama y axis uu la sameynaa ama x axis angle buu sameynaa ala kulli xaal laakiin haddii uu ma aragtay uu ku dul sameeyo across the vertical line uu ku sameeyo xagasha away no angle uu sameynayo xagal ma sameynayo haddii halkan aan sameyno islamid ah objective hadduu dhaqaaq uu sameeyo bartaas uu joogo projectionkiisa halkaas uu imaanayo hadduu inta imaado projectionka intuu imaanayo hadduu inta imaado projectionka halkaas uu imaanayo there is no angle marka wax xagal ah uu sameysmo ma laha marka baraha final markuu joogo ama final positionska markuu joogo objectiga projectionkiisa wuxuu leeyahay 0 angle ma sameynayo hadduusan angle sameyneynin marka meeshaan intaasoo dhan waxay leegtahay null and void ma lahan
marka waxaan leenahay maximum velocity-ga kelito waxaa lagu helaa amplitude-ka lagu dhiftay angular frequency ama angular velocity. halkaas waxaan kaga gudbaynaa derivationka. waxaan fiirinaynaa example la xiriira casharadan. Okay, so example 1.10 sidaan uu leeyahay a mass on a spring vibrates vertically with an amplitude of 15 centimeter. Okay, and the frequency record dan wuxuu leeyahay 20 hertz ayuu leeyahay. Okay, waa qodob. Okay, it moves initially upward direction. Objectigan wuxuu sameynayaa marka motion oo upward direction oo vertical ah. marka mar allaale markii lagu sheego shaygan waa horizontal ama shaygan wuxuu sameeyaa vertical, ustaad meesha waxaa kaaga cad dhaqdhaqaaqa shayga uu sameynayo in uu yahay qaacidada aad isticmaali lahayd ayuu kugu hagayaa. marka haddii vertical lagu dhaho ma dhacayso equation-ka in lagu siiyo, ama hadday dhacdana kelito waxaad ku ogaanaysaa equation-kan isticmaalayo y axis miyaan isticmaalaa ama x axis. waxay ku xiran tahay su-aasha qaabka lagu weydiiyo. haddii lagu dhaho vertical motion uu sameeyey equation-ka y waxaad isticmaalaysaa y is equal to isticmaale. haddii lagu dhaha wuxuu ku socday ama motion wuxuu dhaqaaqay across horizontal axis ku sameeyay, haddii lagu dhaho equation-ka isticmaalaysa x axis uu noqonayo. Okay, su-aashana la weydiiyaa waxay tahay write the equation of the motion for this oscillation. b what are the position and the direction of the motion of the mass at t is equal to 3.1 second. Okay, salamida waxaa kaloo la siiyay time la eg 3.1 second. waxaana lahay equation-ka motion-ka uu sameynayo muxuu noqonayaa. equation-ka ustaad wuxuu noqonayaa y is equal to a sin 2 by ft. sababta aan kan u qaatay maxay tahay? sababtaan u qaatay waxay tahay 2 by f waxaan haystaa frequency haystaa, f taas frequency qodobkaas waa inay la fahantaa. marka halkan waxaan sameynayaa amplitude-ka maadaama uu yahay centimeter meter u bedel 100 u qaybi. halkan waxaan helayaa 0.1 meter. therefore waxaan leeyahay equation-ka wuxuu noqonayaa 0.15 sin 2 by oo ku dhacsan f meeqa waay 20 hertz oo lagu dhiftay t. Okay, 0.15 sin 2 times 20 waa 40. wuxuu noqonayaa 40 by t. equation of the cycle kaas saan uu noqonayaa. equation-kaada saas uu noqonayaa. qaybta b waxaa la maxay noqonaysaa jihada motion-ka salimid ah magnitude-kiisa, yacni position-ka uu taagan yahay qiimaheeda. Okay, kana isticmaalaynaa. Okay, haddii y axis position-ka uu joogaan laga rabo soomaan. yes, waxaan leeyahay 0.15 sin 40 by meesha t waxaa ku bedeshaa 3.1 waaba la isii soomaan. qaybteeda b aa liigu sii. Okay, calculator-kaa soo qabso ustaad 0.115 sin 40 geli 40 by 3.1 geli. waxaa kuu soo bixi ustaad halkaas waxay kuu soo bixayso 0.03 meter. 0.03 meter oo negative ah.